ciidan iskugu jiro National Guard iyo waliba qolooyinkan ICE ayaa lagu soo daabulaya magaalada Minneapolis iyo waliba magaalada ee sheegay Twin Cities magaalooyinka lagu magacaabo ee labada ah ee St. Paul iyo waliba Minneapolis ayaa lagu soo daabulaya hadda waxay joogan Cedar area sidoo kale Riverside iyo meel kasta ayaa la daadin doonaa ciidamadaasi oo boqolka ah waana lagu soo kordhin doonaa boqol iyo waliba wax ka badan sababtu waxay tahay in macnaha Soomaalida la iska qabqabto oo wadankoodii looma Soomaaliya loo musaafiriyo ulajeedku wuxuu yahay macnaha ay sheegay ayaga oo ku maraamarsiyonayo Soomaalida waa tuugo Soomaalida Mareykanka lacag ka dhaceen malaayiin dollarka Mareykanka ilaa iyo waxa la sheegayaa $1 billion in Soomaalida ay dhaceen oo mashruucyo kala duwan ay ku dhaceen hadii ay noqoto programkii Feeding Our Future 2020 Safari Restaurant hadii laga soo bilaabo Sweet Gary Amy gamekii asagana ku soo dar iyo waliba programkii HSS ama housing ahaa wiilasha lagu soo eedeeyay asagana sidoo kale ilaa hadda dabagalka lagu wado ilaa 86 qof oo lagu soo eedeeyay programyadaas ayaa iskugu jiro Soomaali iyo qolooyin kale oo ajaanib ah laakiin Soomaalida ayaa u badan oo 79 kamid ah kiisaska dadka loo heesto ayaa la sheegay inay Soomaali yihiin laakiin Soomaalida waxay tiraahdaa hal baruur ayaa baruuro badan qurmisa Soomaalida intaasi waa ay ka badan tahay oo macnaha ay sheegay looma saari karo ayaga oo lagu eedeynayo in ay tuugan yihiin lama wada dhihi karo ayaga ayaa sameeyay sida ognahay waxa dhowr jeer lagu celceliyay in macnaha ay sheegay mas'uuliyiinta waliba Soomaalida ay doorato gobolka guud ahaan Minnesota iyo gaar ahaanba magaalooyinka Soomaalida ugu badan ay joogan gobolka Minnesota St. Paul iyo waliba ay sheegay Minneapolis lagu magacaabo Twin Cities ayaa sheegay in macnaha arintani dad macnaha wax ay sameeyeen oo accountable ah oo ayaga la rabay in lagu qaado community dhan loo galaafto sidoo kale governor Tim Walz ayaa ka hadlay waxa sidoo kale hadeer ka soo hadlay Jamaal Cusmaan oo waliba si af Soomaaliyeedsan asaga si khaas ah Soomaalida oo la hadlayo ogana digahayo maadaama Riverside iyo waliba ay sheegay North Minneapolis dad lagu qabtay shalay ama saacadihii la soo dhaafay ayaga oo sharciyadoodii iyo wax walba heesto balse su'aalo la weydiiyay oo ay ka jawaabeen ayaa lagu qabtay iyo saxiixiyo sida la sheegay ay u saxiixeen ayaga oo u fududeynayo in la tarxiilo macnaha waa wax ama kaag ah qof macnaha ay sheegay adiga ku raadsanayo inaad u fududeyso ama facilitation aad samayso qaabkii adiga macnaha ay sheegay uu ku soo abaari lahaa marka hadallada qaar Soomaalida inay ka jawaabaan looga digayo ayaa waxa kamid ah any kind to do with immigration kaada iyo waxyaabaha macnaha ay sheegay inaad ka jawaabin loo baahan yahay ayaa hadii wax ka weydiiyaan immigration kaada location meesha aad degan tahay goortaad Mareykan timid waxyaabaha soo dhan macnaha ay sheegay inaad afkaada ka qabsato oo aadan uga jawaabin ay xaq u leedahay ay sidoo kale waraaqaha ay ku dhiibi doonaan saxiix ay ku dhihi doonaan inaadan saxiixin ayaa sidoo kale xaq u leedahay Jamaal Cusmaan waa City Council of Minneapolis District 6 ayuu ka soo galaa waa waliba City Council memberka ugu fiican waliba areadaas inkastoo mix ay tahay Soomaali iyo waliba qolooyinkan cadaanka ah labadaba ay ku jiraan ayaa 3 jeer uu ku soo noqday booskaasi isaga taa waxay ku tusaysaa inuu ku jiro City Councilka ugu wanaagsan ee Minneapolis guud ahaan ayuu ku jiraa sidoo kale ama golaha deegaanka degmada lixaad ayuu ka soo galaa bal muuqaalkan ila daawo joogaa Cedar Riverside oo building baa joogaa waxa maqasheen waa ogtahay Donald Trump dagaal uu ku wada Somali community-ga ciidan badan oo ICE ah oo 100 gaaray ayuu soo diray saan maqalnay oo New York laga soo xiyay Minnesota u soo diray hadda waxa maqalnay target ka Lake Street area-da tageen way iskala saareen mar meel bay tagaan Cedar baad joognaa Cedar way yimaadeen baa la dhahayay area-deeda dadka random bay u qabanayaan qof bay iska istaajinayaan saan u maqalnay waxayna dhaheen maxaa la dhahaa sharcigaaga keen arintii Kenya laga yaqaano kaleeto marka walaalayaal waxaan rabaa inaan u digo dhammaan jignaada especially dadka aqoontiyaasha sugaya dadka asaalamka xareystay waxaan rabaa inaan jignaado xuquuq ayaa leedahay hadii albaabka ku soo galaan albaabka furan magaalada Minneapolis garabkaaga ay taagan tahay ninkan White House ku fadhiya waa nin racist ah waa nin mataqaana xenophobic ah waa nin Islamophobic ah marka waxaan rabaa inaan dhammaan u sheego community-ga xilliga maanta loo baahan xilliga isku duubnaa lahaayeen dalkan waa dal immigrant ayaa loo suubiyay
immigrant baa weligeed imaan jirtay dhowr boqol sano u dambeysay marka waxaan u sheegayaa community-ga dadka doorateen garabkiina taaganahay wixii violation ah community-ga lagu soo biyo soo sheeg una soo sheeg haday arkaysi dhibaato ku socoto community-gana ka hadal oo ma taqaanaa dadka garab si marka walaalayaal community-geena target baa naloo seeyay hadda waa maqalnay moolashii xataa dadku ma tagi karaan baa la yiri dadku way baqayaan haddana waxaan maqlay saan u sheegayba Nicolas agteeda in lagu istaajiyay laba qof oo la yiraahdo ID-giina keena ama sharcigiina keena oo dad caadi ah citizen oo sharciga markay tuseen ay ku iska sii daayeen marka violation ayay ku dhaqmayaan marka waxaan rabaa inaan sheego message-kan maanta press conference baa qaranay message-kan waa message ah immediately hal fijignaansanaado community-ga dagaal baa lagu wadaa sidoo kale arinta ugu muhiimsan oo Soomaali kasta ee wadankani magaaladan waliba Minneapolis iyo guud ahaanba gobolka Minnesota joogo in uu ogaado u baahan yahay ayaa ah wadankani in uu yahay wadan immigrant wadankan inuu yahay wadan dad isku yimid oo macnaha ay sheegay wadan samaystay oo wax isla qabsaday that's why United States of America loogu magacaabo wadankani taas in ay maskaxdaada ka dhaadhacdo waa mid aad muhiim u ah arintaasi oo sababtu tahay waxa markaasi maskaxdaada ka bixiso wadankani waa laga xiga waa laga tarxiiri karaa anytime iyo waxyaabo kale oo fara badan ama laga yaabo in macnaha sheegay dad badan ay horay iskaga dhaadhiciyeen si dad kale ay ugu hoggaansamaan oo ay is hoos dhigaan annaga se aadna laguma yaqaano dabeecadahaasi balse waxa aad muhiim u ah in arintaasi Soomaali badani oo ay ka qarsooneed macnaha sheegay aan tooshka ugu ifino aan u rabno in arimahaasi ay ogaadaan in wadankani uu yahay dad isku yimid United States of America magaca waxa loogu bixiyay oo sida yahay sidoo kale gobolada Mareykanka way kala madax banaan yihiin gobol kasta wuxuu haystaa caalankiisa iyo waliba dastuurkiisa u gaarka ah iyo dhaqamadiisa iyo waliba sheegay loogiisa ama waxyaabahaas oo dhan iyo maxkamadihiisa ayuu gaar u leeyahay the only wadanka kaliya oo qaabka federalismka ah si toos ah ugu dhaqmana Mareykanka ayuu ahaa intii uuna xilka ku soo noqonin Donald Trump sanadkii 2025 oo hadeer dhowr biloodba uu xilka hayo marka arintaasi aad ay muhiim u tahay hadii Soomaalida in ay ogaadaan ay muhiim u tahay hadii muuqaalkan ku soo gaaro fikirka qaybta comment inoo soo qor hadii aan ugu cusub tahay sidoo kale nagu soo biiro subscribe noo saar waan mahadsantiin